Gudoomiyaha degmada Kaxda Mudane Maxamed Yuusuf Maxamed Yare ayaa maanta shir gudoomiyey kulan looga hadlayay xoojinta amniga, dakhli ururinta, dhismaha wadooyinka iyo xaaladda nololeed ee barakacayaasha ku nool degmada Kaxda. Waxaana ka soo qayb galay shirka dhammaan xubnaha maamulka iyo taliyayaasha laamaha amniga degmada Kaxda. Shirkan oo qaatay muddo saacado ah ayaa markii dambe laga soo saaray go'aamo wax ku ool ah iyada oo la isla qaatay in la fuliyo go'aamadii ka soo baxay kulankii maanta. Maahan markii ugu horreysay ee maamulka degmada Kaxda isugu imaadaan shirar noocan oo kale looga tashanayo xaaladda degmada Kaxda iyadoo maamulka mar walba u taagan yahay ilaalinta ammaanka degmada Kaxda.